daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films channel oo alaaba idin soo gudbisa dhacdooyinka xiisaha badan ee aktarada shirkadda Hollywood ka waa barnaamijka arrimaha bulshada waxaan kaga hadlaynaa arrimaha qoyskooda iyo faaqidaad hoose. barnaamijkan waxaynu ku soo qaadanaynaa shantii furiin ee ugu naxdinta badneed abid ee ay sameeyeen jilayaal Hollywood ka tirsan. shantan furiin waxa ay furiimada kale kaga duwan yihiin labada lamaane ee kala tagay taqriiban waxa ay wada noolaayeen kuwa ugu yar muddo 10 sano kor u dhaafaysa. waxaana arintaasi garan kara xanuunkeeda dadka kala taga ama furiinka uu saameeyo. haddaan barnaamijka guda galo aktarka koowaad ee sameeyay furiinka naxdinta leh waxa uu ahaa aktarka caanka ee Amir Khan oo aad wada taqaanaan. Amir Khan waxa uu furay xaaskiisa Reena Dut iyo Amir Khan waxa ay ahaayeen laba qofood oo daris ah oo labadooda guri ayaa iska soo horjeeday. waxay ahaayeen laba reerood oo dabka kala qaata cusbada kala qaata xawaajka iyo waxyaabaha la midka ah. xiriirka noocaasi labada qoys oo uu soo dhexmaray kadibna wiilkii iyo gabadhii la isku daray oo muddo 5 iyo 10 sano ah meel wada deganaa u badna isu dhalay ayaa ugu dambeyn waxa uu ku soo gabagaboobay gamdam iyo baaba. sababta marka ka dambaysahay waxa ay tahay furiinka Reena Dut iyo Amir Khan oo ay dadku la wada yaabeen. Reena Dut oo markeedii horeba aana haysanin diinta islaamka ayaa Amir Khan waxa uu hore ugu xiray in ay islaamto oo ay diinta muslimka gasho. arintaasi jacaylka ay u qabtay Reena Dut waa ay ka aqbashay Amir Khan oo waa ay islaamtay. markii ay soo muslintay kadib ayay isguursadeen muddana waa ay wada joogeen balse sanadku markuu ahaa 2001 sameyntii filimkii Lagaan directorkii filimkaasi waday ee Ashutosh Gawari ayaa filimkii hakad geliyay kadibna mar la weydiiyay oo la yiri maxaa filimkii Lagaan ee aktarka uu ka ahaa Amir Khan hakadka geliyay. arintaasi waxa uu kaga jawaabay in dhaqaalihii uu ugu talagalay filimka uu ka batay oo loo baahan yahay dhaqaale ka badan maadaama uu ahaa filimkaasi filimkii ugu ajaanibta badnaa ee ajaanib Britain ay ka qayb qaataan jiliinkiisa. arintaasi waxaa maqlay xaaska uu qabo Amir Khan ee Reena Dut ayada ayaa shafka u tumatay oo filimkii intii ka dhineed kharash dib u gelisay si filimkaasi loo soo saaro. arintaasi ayada ah ee ay sameysay Reena Dut waa arinta keentay in ay ku kala tagaan Amir Khan iyo xaaskiisa Reena Dut. Soomaalidu waxa ay tiraahdaa xoolo naageedii waa la iska fogeeyaa qaadaba ha ahaatee waayo haday ay ku soo galaan muran iyo qaylo ayaa bilaabanaysa iyo fan aanan loo joogin. Amir Khan waxa uu arintaasi markii ay dhacday kadib yagleelay intuusan furiinka dhicin ka hor shirkad uu ugu magac daray ama production Amir Khan Productions. intaa kadib murunkii waa uu soo jiitamay ugu dambeynna waa ay kala tageen balse waxa ay tahay arinta la yaab kale. Amir Khan waxa ay u dhashay Reena Dut laba wiil iyo gabar bay u dhashay. halka aan ku noqdo daawadayaal wiilkiisa Junayd oo dhawaanba uu soo bixi doono filimkiisa ayaa markii ay kala tageen muddo kadib Reena Dut oo socdaala waxa ay aragtay wiilkeedii Junayd oo labisan oo waliba misana ku labisan darees aad u qurux badan oo suud ah oo socda. iyadana markaasi waxa ay la socotay habla kale oo ay sheekaysanayeen. mar qura ayay Reena Dut inta istaagtay ay la yaabtay qaabka uu wiilkeedii Junayd noqday. ilin ayaa indhaheeda ka soo daalatay. gabdhihii markii ay su'aaleen oo ay yiraahdeen Reena waa maxay ilinta ka socoto horteeda fiiriyay tiri wiilka taagan waa aniga wiilkayga Junayd oo aanan muddo arag. waxay tiri muuqaalkiisa waxaan soo xasuustay aabihii marka uu jilayay filimkii qiyaama tag labiskii uu xirnaa ayuu xiran yahay bay tiri. kala taga labada lamaane dhibaatada nooca kan oo kale ayuu leeyahay balse arintaasi kadib Amir Khan waa uu u maciinay oo uu u garaabay Reena Dut. waxa ayna haatan xiriirkoodii aad ayuu u wanaagsan yahay. mararka qaarna waa ay la shaqaysaa oo xagga shaqada waa ay wadaagaan caruurtana hadba goobtii ay ka helaan ayay soo seexdaan. daawadayaal halka haddaan kaga gudbo kala tagii xanuunka lahaa ee Amir Khan waxaanu u galaynaa kala tagii labaad ee Riya Pillai iyo Sanjay Dutt. Sanjay Dutt sidaad la wada socotaan baa qaraxyadii Mumbai Palace kadib xabsiga ayuu galay xaaskiisa Riya. arintaasi waa ay la murugootay habeen iyo maalinna ma aysan seexan. waxa ay isku taxallujisay sidii mar qura banaanka ku keeni lahayd saygeedii oo xabsiga dhex jiifa dhiqlana uu meesha ku cunayo. dadaalkii intaasi la ekaa ee ay waday Reena Dut
markii uu Sanjay Dutt xabsiga ka soo baxay waxa uu ugu jawaabay in uu ayada warqadeeda siiyo waxaana arintaasi mar uu Sanjay Dutt ka hadlayay uu sheegay in intii uu jeelka ku jiray ay Rhea Pillay ay xiriir la sameysay ciyaariyahanka weyn ee reer India ee ciyaara kubadda tenniska magaciisana la yiraahdo Linda Peace ay xiriir la waday oo uu sheegay in ku jiritaankiisa xabsiga aysan dan iyo heel lahaba yaraatee kala hayn Rhea Pillay arintaasi waa ay ka didisay waxa ayna tiri Sanjay Dutt waad qaldan tahay xaaskaygiyo dadkaadii maleysana maahay laakiin ugu dambeyn waxa ay ku soo gabowday in ay kala tagaan waxa uu ahaa furiin aad u xanuun badan qof adiga oo jeel ku jira dadaalku ugu jirtay adigana aad qabrigeeda qodaysay daawadayaal furiinka saddexaadi waxa uu ahaa kii Saif Ali Khan iyo Amrita Sin iyo Saif Ali Khan waxa ay isguursadeen sanadku markuu ahaa 1990kii labada lamaane waxa ay xagga da'da ka weyneyd Amrita Sin 13 sano balse Amir Khan oo filimkiisa koowaad laga saaray in uu jiro oo foos wareersan ayay gacanta ka qabatay maadaama ay ahayd jiraacana sidaa daraadeedna waa ay gaxaysatay oo way guursatay guurkoodii kadib caruur iyo ubad ayaa reerkii ku soo kordhay muddo markay wada deganaayeen oo ay ahaayeen laba lamaane oo aad isugu qanacsan sanadkii markuu ahaa 2000 iyo labadii ayaa muran soo dilaacay murankaasi waxa ay sheegtay maray Amrita Sin ka hadlaysay in ay ninkeeda Saif Ali Khan ku aragtay isaga oo xiriir hoosaad la yeeshay modelistaha weyn ee Rosa Catalona ugu dambeynna waxa uu sababay in ay ku kala tagaan qoyskii muddada wada deganaa halkaasna ubadkii lagu kala kaxaysto furitaanka afaraadi waxa uu ahaa furitaankii Hrithik Roshan iyo xaaskiisa Susana waxa ay labada lamaane isqabeen muddo 13 sano ka badan waxa ay isu dhaleen laba wiil xiriirkooda oo aad u wacan oo ay iska damaashaadayaan oo wax xoolo adduunka aysan ka dhimanayn ayaa mar qura waxa soo kala dhexgalay tashwiish meel uu ka yimid aan la garanin ugu dambeynna waxa ay Susana propose gareysay amaba maxkamadda ay geysay faylashii ay ku dalbanaysay furiinkeeda oo ay tiri madaxayga halayga siiyo ina Rakesh Roshan wiilka la yiraahdo ee Hrithik dacwadaasi qaabkay u qorneed markuu arkay Hrithik isna xanaaqi uu qaaday waxa uu dacwad kale oo ah inuu ogol yahay maxkamadda geeyay si degdeg ah arintaasi markii ay dhacday oo uu Hrithik iyo looyarkiisii ay maxkamadda geeyeen Hrithik oo foos wareersan oo madaxii midba meel bajaha ka jira ayaa waxa uu soo aaday bal inuu maskaxda ku degsado biijajka magaalada Mumbai biijajka lagu nasto kooda ugu hanaanka wacan waa Jahua Beach markii uu yimid jilayaal kale oo arinta la socday ayaa waxay arkeen Hrithik Roshan oo hal ku taagan oo dhafoorka haysta haddii su'aashi koowaad la weydiiyana waxa uu yiri ma aqaano sidaan ahaa markaan warqadda maxkamadda geynayay in aan aniga xaaskayga kala tagno ugu dambeynna arintaasi waa ay soo gabagabowday balse waxaa loo aaneeyaa kala tagoodii jilaaga caanka ee Arjun Rampal amaba Soomaalidu ay u taqaano Gorof furiinka shanaadi waxa uu ahaa kii Karishma Kapoor iyo Sanjay Kapoor oo isguursaday 2003 iyo 2012 kala tagay labadan waxa ay ku kala tageen arrimo dhaqaale sidii Rhea Dutt iyo Amir Khan oo kale waxa ay dalbatay in meherkeedii uu u ballan qaaday uu siiyo qoraalna u sameeyo una saxiixaantida ayada goonida waa arintaasi waxay jiitantaba ugu dambeyn waxa ay Karishma Kapoor madaxeedii ka qaadatay Sanjay Kapoor iyadoo oo waliba aflagaadooyin aan loo dulqaadan karin hawada la isu mariyay oo uu dhowr jeer ay tamay ninka la yiraahdo Sanjay Kapoor oo ahaa xaaskii hore ee Karishma Kapoor daawadayaal barnaamijka waxa aad ka daawanayseen saxafi Films Channel ha moogaanina inaad subscribe tiraadaan si aad ula socotaan barnaamijyada kan xigi doona fikirkiinana inoogu reeba qaybta commentiga inagoo isku duuban oo baada saxafiina waxaanu idinkaga tegay markii meel aan aado waxaan soo maqlaaye muslim iyo gaali intiis moo la soo uumaya minikaaga joogaane markii meel aan aado waxaan soo maqlaaye muslim iyo gaali intiis moo la soo uumaya minikaaga joogaane ma
aane mahayrahini ma jira warkaasi maya maya abo ma jire warkaas meel ku xoore mirka adeege minikaaga mooganta wala soo maraaye markii meel aan aado mininkeyga waa leeska soo maraamiyaay mirka adeege minikaaga mooganta wala soo maraaye minamiininkeygi lisku soo mareene maradan mahawaaye ima awistaane aniga ma ehe mideede minamiininkeygi lisku soo mareene maradan mahawaaye ima awistaane aniga ma ehe mideedi ma aane mahayrahini ma jira warkaani maya maya abo ma jire warkaas meel ku xoore mirka adeege minikaaga mooganta wala soo maraaye markii meel aan aado mininkeyga waa leeska soo maraamiyaay mirka adeege minikaaga mooganta wala soo maraaye